Madaxweynaha Mareykanka oo lagu ganaaxay $2 milyan. Halkan waa Qowl Media TV waxaanu dul istaagi doonaa fadeexad cusub oo hareeraysan madaxweynaha Mareykanka oo ah mid ka mid ah madaxda caalamka ugu awoodda badan. Maxkamad ku taalla magaalada New York ee dalka Mareykanka ayaa amartay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump inuu bixiyo ganaax lacag oo dhan $2 milyan maadaama uu si sharci ah u isticmaalay lacag ay leedahay hay'ad samafal uuna u adeegsaday ololihiisa doorashada. Hay'adda Donald Trump Foundation ayaa la xiray sanadkii markuu 2018 kadib markii xafiiska dacwad oogaha Mareykanka uu ku eedeeyay in ay ka shaqeyso danta madaxweynaha. Garsooraha maxkamadda ayaa sidoo kale amray in hay'addan oo ay madax ka yihiin madaxweyne Trump iyo saddexdiisa carruur aan loo adeegsan karin arrimo siyaasadeed. Waxa uuna intaa raaciyay in lacagtaasi ganaaxa uu madaxweynaha jeebkiisa ka bixiyo. Waxaan Trump ku amrayaa inuu bixiyo lacag dhan $2 milyan. Lacagtaasi oo haddii ay taali lahayd ama ooli lahayd loo adeegsan lahaa howlo gargaar, ayay go'aamisay garsooraha maxkamadda. Waxaa kaloo ay garsooraha sheegtay in lacagtaasi farta laga saaro 8 hay'adood kuwaas oo aan wax xiriir ah la lahayn madaxweyne Donald Trump kana madax bannaan. Madaxweynaha ayaa sidoo kale maxkamaddu sheegtay in uu gabay mas'uuliyaddii saarnayd maadaama lacagtaasi deeqda ah ee loogu talagalay dadkii u soo halgamay Mareykanka loo adeegsaday doorashadiisii isreebreebka ee sanadkii markuu 2016 ka dhacday dalka Mareykanka. Xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in carruurta uu dhalay madaxweyne Trump ee kala ah Eric Trump iyo Ivanka Trump oo ka mid ahaa maamulka hay'addaasi haatan laga doonayo in ay qaataan tababar qasab ah oo ku saabsan maareynta maamulka hay'addaasi. In lacagta uu bixiyo madaxweynaha ayaa ah xalka ugu dambeeya ee dacwaddan oo ay soo gudbisay xafiiska dacwad oogaha Mareykanka. Hase yeeshee, madaxweyne Trump iyo qareenkiisa ayaa ku doodaya in arrintan ay tahay mid siyaasadaysan, waxayna ku eedeeyeen in ay ka dambeeyaan siyaasiyiinta xisbiga dimuqraadiga oo uu sheegay inay sameynayaan wax walba si ay isagu dacwad ugu soo oogaan. Pompeo oo khudbad uu ka jeediyay Berlin ku weeraray Ruushka iyo Shiinaha. Xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Mike Pompeo ayaa ka digay khatarta Ruushka iyo Shiinaha. Waxa uuna ku baaqay in la kobciyo NATO lagana hortago caqabadaha maanta taagan. Mr. Pompeo ayaa booqasho ku jooga magaalada Berlin. Waxa uu sheegay in habka Shiinaha uu isticmaalo dadkiisa ee caburinta ah waxa ay u eg tahay habkii naxdinta badnaa ee ka dhacay bariga Jarmalka. Ruushka ayuu dhanka kale ku eedeeyay in uu xoog ku galayo dalalka deriska la ah, sidoo kalena uu baacsanayo mucaaradka. Waxa uuna kaloo ku qoslay hadal ka soo yeeray madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron kaas oo dhowaan yiri waa maskax dhimatay. Hase yeeshee, Mr. Pompeo ayaa wariyaasha waxa uu sheegay in 70 sano ay ka soo wareegatay markii la dhisay isbahaysiga NATO. Waa in la kobciyaa wax laga bedelaa, ayuu yiri. Waxaana loo baahan yahay in isbahaysiga uu la falgalo caqabadaha iyo dhacdooyinka maanta, ayuu yiri Mr. Pompeo. Haddii dalalka ay rumaysan yihiin in ay kaalmo ammaan heli karaan iyagoona NATO siinayn kharashaadka ay u baahan tahay, marka haddii aanan waajibaadkooda ka soo bixin, NATO waxa ay halis ugu jirtaa inay noqoto mid aan shaqaynin, ayuu yiri xoghayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka. Intaas waxaa noogu dhan warkeennii. Halkaad nagala socoteen waa Qowl Media TV. Fadlan like iyo subscribe iyo share intaba inoo sameeyo. Aragtidiinana waa inoo muhiim.